Engineer Abdulxafiid si wacan baad ii soo dhaweysay waana ku mahadsantahay sidii soo dhaweysay aniga magacaygu waa Mubaarak Cali Xayd waxaan ahay arday wax ka barta Bangladesh waa ardayda seniorka hadda dhamaysay waayahaygu waxbarasho waxaan ka soo jeedaa gobolka la yiraahdo gobolka Burco togdheer ee ku yaala Somaliland waxaan bilaabay waxbarashadeedii hoose 2003 muddadaas oo aan ka bilaabay dugsiga hoose KG-ga dugsigayga elementary-ga iyo primary-ga waxaan dhameeyay 2010 ilaa 2011 sanad dugsiyeedkii waxa kale oo aan bilaabay muddada 2011 dugsiga sare ee Fowanka dugsiga sare Fowanka 2011-2015 ayaan dhameeyay 2015 wixii ka dambeeyay waxaan Bangladesh 2015 bishii 10aad toddobadeed waxaan wadanka Bangladesh waxaan bilaabay 2016 electrical engineering jaamacadda Dhaka International University haddana waan dhameeyay alxamdulillah والله Abdulxafiidow waa farabadayiin haddaan soo qaato waxyaabahan ka bartay waxa kamid ah yaanigi xagga dhacdooyinka xagga yaanigi dadka dulqaadka waayo halka waxaad ku baranaysaa yaanigu waxa la patient dulqaad waxa laga yaabaa inaad sidii qofku inuu ku dhaco change noloshaada wax kasta waayo waxaad soo gelisay mood wax la mood baa ku dhacaya moodkaas waxa uu isbedel waxaad ku baraysaa horta qodobka ugu weyn waayo anigu waxaan ahaan jiray dadkan aniga samirka badan hay laakiin waxaan ku bartay hadda alxamdulillah samirkan ku bartay dulqaadka patientiga waayo waxaad experience u yeelanaysaa ama dulqaad muddo fara badan oo yaad samraysaa marka taas waa kow waxaad arkaysaa a lot of Somalian ka yimi gobolada kala duwan ee adduunka oo Soomaalida shanta Soomaaliyeed waayo talafteed waxay ku noqonaysaa yaanigi dhacdo kala oo baratay way maadaama marka hore aad hal gobol joogi jirtay oo yaanigi waxaad arkaysaa shanta Soomaalida Djibouti NFD Soomaaliya Somaliland Jigjiga waxaad arkaysaa different Soomaali waxaad ka baraysaa marka waxyaabo kala duwan oo yaanigi behavior kala duwan waxa kale oo aad baranaysaa dabeecadda environmental change-ga ka dhacaya Bangladesh oo kale oo inaad la falgasho marka dhacdooyinkaas oo fara badan ayaa jira iyo kuwa kale oo aan hadda ku soo koobi karno yaanigi fara badan wallahi waad mahadsantahay ardayda Soomaaliyeed horta ardayda Soomaaliyeed waxaan ku talinayaa maadaama ujeed qurayo inuu meesha waxa jira imika Soomaalidu anigu wax qura ka midaysan waxa qurina waxa weey aqoonta same language man ku hadalaa marka anigu ardayda Soomaaliyeed taladan siinay waxa weeye hal waxba inuu nimi ujeedadaas oo ahayd inaan noqono learners education laftiisa inaad iska barato wax muhiim ah ma laakiin kugu sameeyso wax la yiraahdo practical training oo waa inay waxbarashadu ku train gareyso ku bedesho muuqaalkaaga shape-kaaga sida u hadlayso dhaqankaaga yaanigi arday inaad ahaataa macnaheedu badan soo kordhinayso hadii aqoontaad baratay waa inay ku bedesho behavior-kaaga sida u dhaqmayso yaanigi saa dadka luqadad ku hadlayso oo xeebahaas u dhoweyn ka bedesho yaanigi adiga qofkii way arag baa timeka waxa tiin wadan kala tahay dad kala barado waa inaad career-iska dhaqamada kala duwan xambaarto yaanigi dhaqankaaga waa inaad ka dhigto dominant sidii yaani qof wax barto kale qodobka kale aan ku talinayo waxa weeye iyo arday badan ba ardaydu ardayda Soomaaliyeed inaga isu waalida inaga isu inuu xasi sheegin muhiim tahay waxaan filayaa ardayda inta wax barata soo aan wax bartana waa alxamdulillah ha barato ardayda kale midarka leexday adduunka oo dhan uga jirta wadanka oo jira meel kasta qof leexday oo jira waxaan leeyahay wadada toosan lagu soo noqdo yaanigi wixii la inoo soo diray ka mid dhalno marka qodobkaasaan ku talinayaa in ardaydu wixii loo soo diray ka mid keenan diyaar
والله أنا أردنيو أنا وأنا أرتي electrical engineering مركا waxaan jecelahay buugaagta aanu ma akhriyo yaani buugaagta kale aanu u rido waxa akhriya inta badan buugaagta engineeringa marka buugga anigu akhriska badan waxa kamid ah kulliyada ardayda waxa jira wax la the same language because ardaydu there is different categories ardaydu way kala duwan laakiin engineers waxay ku hadlaan wax la same language anigu kulliyay buugta anigu jecelahay in aan akhriyo markasta waxa la yiraahdo buug la fekam hada waana wuxuu ka hadlaa electricalka weeyaan يعني سووا قيبته باور كوت خصائص تبادن برجع بوجا سامين بدن بوجا شيء ما دام عندنا المستقبل كنا نقضى أرتي قيبته باور كأول قيبته distribution كا مركا نلاش شيء ده يو وحيوه كله رادوين impactuين بكله بوجانا كل وايلا وهو 25 chapter 26 chapter مركا أرتي ده engineering كوردان إني بوجا ووت سهران وآخرين ومهم وانا بوك wax badan ka bedelay ardayga dhigtay electricalka marka buugaas ay ugu saameyn badnaa waxyaabo badan oo ka faa'iiday oo yaani aan hadda koow iyo laba muddooyin qaadanaysa hadii laga sheekeeyo waa sax maadaama su'aashaad weydiisay inkastoo hubigayga aan madaxweynaha ahayn macallin jaamacadeed noqdo waan jecelahay inaan noqdo lecturer sare oo yaani senior dhiga jaamacadaha wadanka laakiin hadii aan noqon lahaa ifbet soo geliso hadii aan noqon lahaa laba xumaan ka bedela labada waxa weeye in basic structure-ka yaani lambarka koowaad in caafimaadka wadanka la soo kor loo soo qaado iyo waxbarashada labada qodob hadii bini'aadamku labada qodob helo caafimaad oo life-ka iyo education labada hadii wax badan baa adduunka iska bedelay marka labada qodob ayaan ka bilaabi lahaa naftayda yaani saddex eraan ku qeexi karaa waxay noqonayaan in qof aan ahay yaani dulqaad leh oo yaani capability leh oo ay maadaama hore kugu soo meeshin gariyaan guri dulqaadka martay waxaan practical training learners of writing waxaan social worker ama socialism oo qof dadka bulshada dhex gala waxaan qof kale oo patient person oo yaani dulqaad badan oo accessibility-giisu fara badan yahay haddii noloshaydu ahaan lahayd book waxaan oran lahaa buugga in la yiraahdo practical training life of education or reading waayo maadaama aan akhriska jecelay aan accessibility leh inaan fadhiyo 9 hour 10 hour buuggiga waxaan u bixin lahaa practical training because haddii aad wax akhrido waxaad noqonaysaa qof trainer yaani oo maskaxdaada waxa ku dhacay enlargement way ballaaranaysaa oo kobcaysaa marka buugga magacaas aan u bixin lahaa maalmaha kamida 2013-2014 ayaan berigaano from 3 yaan xanuustay marka 5 months ayaan xanuunsanayay marka dhakhtar baa igu yiri noloshaada inaad wax damba barataa muhiim ah marka inaad wax barasho iska diiso oo rasti badan qaadato yaani waa taladii ugu xumeeyay qof bilaadanaysiyo yaani laakiin waan breakreeyo waan dhageystay waan iskaga tagay marka yaani taladaas waxa ahayd baan filayaa tala xun laakiin ilaahay baa garansiiyay maadaama uu yiri inaad wax barato muhiim ah maadaama ay wax ku yeelayso akhriskan fara badan iyo fadhigan badan marka taladaas taladii yaani ugu xumeeyay ay ahayd taladii kale ugu canayd qof bilaadanaysiina waxa ahayd yaani qof bilaadana nin aan saaxiib ahay inuu macallin la ayaa igu waa inaad markasta gudadaasho inaad noqoto qof kuula yaani qabow degan waayo marka hore anigu sheegay xanaan jiray qof yaani kulul banaan jiray laakiin hadda experience waxaan leeyahay wax kasta inaan u dulqaato marka talada macallin ay siiyay macallinkaygi bay siiyay igu yiri talada inaad markasta patient aad u dulqaad yeelato marka labada talo saas ahayd yaani hada noloshu kala duwan kol waxay ku xiran tahay yaani waxa isla markaa taagan la qabanayo yaani aanu hadii amarkayga la qaadanayo oo yaani aan qodobada jecelayn laakiin waxa oran lahaa yaani laba qodob oo muhiim ah yaani maadaama nahay dad muslimiin ay salaadina tukadaan oo ku amri lahaa qodobka kale waxa weeye inay nolosha kolba wixii life ka oo yaani ay
la jaan qaadaan yacni xagga educationka iyo yacni cilmiga diinta inay bartaan marka qodobadaasaan ku amri lahaa haddii aan ahay qof haysta awoodda intaa leh والله يدوك هالمجال شغلين كنا وراءه يعني life future كا يعني بعد شروح لنا فاري بالتشينج كا أذكر سمعنا سو يعني واحد تنتو كوخ زبون كل بام مالك تبدو مهم أو لكن هالمجال يدوك دوك شغلين وين كنا وراءه مجال سو مجال ده هم توم كيكا بران شغلين كنا وراءه مستقبل كفوق هدول هاي كده كل واحد تجي كل مجالات إن كستان جوالله بدن قبنا واحد تجي ما فيله كل اللي يجيب بدي حاجة لكن بنقدرش واحد هذا ميلا فرق بدنه والله تخو حنا كم مدا حيب طلع ستمارتين وقروح بدن تاي حيب تكلم على كسبصر مركا ميلا هسوق كله ميلا بنقدرش وقرولي ستمارتين بعض قروح بدنه يعني جي واحد هذا ميل قروح بدنه سيرة هذا قروح بدنه ويا مركا بنقدرش هذا سيت شغل لا وقت إنه لا ميلا حسن شغال هاي نام مرفي ست كريه بقول أنا ودي أن مقعي بدل لها مبارك وحن لبيه لها علي وحن أمهد علينا يا إنجنير عبد الحفيد أو من هذا قيمة بدن أو أرضي في الفرعون أو يعني نظيرة الصوماليات لحديدة كلا وحلا أكتيفيتي جزء أو سريو وحكلوا من اللي يمان تواي فيديو جاي طوي وحلا ولا اللي هنجاجي جوشة ده جارسيو يا أنت مستقبل كفي عنا الله وين أجي إن شاء الله إن تقولي سنسو marka waxaan leeyahay walaal wad mahadsan tahay saadii soo dhaweysay insha Allah maalmaha kamid ah ku soo dhaweyn doona insha Allah